هكا قرآنك إلهي كل شيء استقامة مركا حال حداد طبقات كستو مسلمين تكمد كل غلاد هاي سادين توقسقنا لها الدليل بلغوها يا دليل هداد بكانا تهينا نبي أيوب أو دليل نبي أيوب سديد يتوصلوا بكانا هاو قيد هوزي في مرنا إلهي طاعد دي سيد دقرقي سمدينين ملك نبي رسوله والله اختباري تضبدي هبلوضو لها مركليا لغا ودا دلي او نفط لغا ودا قبتي واسكا صبري تضبدي ويلو لها مركليا اسرائيل واسكا صبري باريه تجارتي حوله لها ودن مركليا لغا قاday واسكا صبري markaasa jirkiisi waliba xanuun lagu riday uska sabray xanuun nuuceeya gaadhay waxa la jirkii intuu dhamaaday harigaya lafahaas ku dhagan bas markaasa wax ehela waxa uu soo hadhay xaaskiisii markaas qaraabadiisii ku yiraahdeen ama magaalada adigu nooga bax ama anaku aan kaaga baxno may ana inaga fududo inaga tagay buuri ay tukubisay banaanka bay u saartay geed bay hoostiisa dhigtay 18 sano ay culimada qaar sheegaan ayuu geed hoos jiifay subaxdii bay ka tagaysay magaaladay u soo noqonayso dadkii u shaqeyn jirtay aqaladay ka shaqeyn jirtay leeydi wixii mushqaayad la soo siiyay intay soo ugu soo iibiso khubz ayay iyo idaam ayay markaa nabiga ugu keenay jirtay geedka hoostiisa markaas ay ku tiraada ayuubow xanuunkan halka ku gaarsiiyay in ummadii iyo dadkeeni ay banaanka inoo soo tuuraan nabi ducadiisa la aqbala ayaatahe ilaahay ma noo baridaha ka qaada xanuunkan oo dadka ku dhex noqonay markaa buu ku yiraahdaa 70 sano barwaaqo ku soo jirnay ma inta yar baan u adkeysan kara laanahay buu yiri barwaaqadii buu xasuustay isagu waa sunnada ilaahay daa'iman qofka u fiirsada ma inta nicmad aan haysana ayaa badan mise inta dhibaatadu nagu dhacdo ayaa badan mid ka badan nicmada badan marka anbiyadu nicmaday eegeen mar walba dadna municimka marka way ka xishoonayeen ilaahay way ka xishoonayeen marka abu xaaskiisu ku yiri 70 sano barwaaqo ku jirnay ma muddada yar baan u adkeysan kari laanahay ayadoo magaalada ku maqan maalmaha kamida labadii dad isaga ugu dhaweeday qaraabadiisa ayaa markay u yimaadeen sheeday ka joogsadeen baa la yiri mid baa yiri marka waru dhawaanay meeno xanuunkiisa inuu nagu soo tacaadiyaan ka baqaynaaye malaha dambi wuxuu galay ninkani dadku aynan gelin ereygaas marka nabi ayuub uu maqlay kolkay ka noqdeen ayuu gurgurtay dadna meeshuu ku xaajoonay markuu ku soo xaajooday geedkii uu ka yar dhaqaaqo xagga buu uga dhaqaaqay halka buu marka ku ducaystay baa la yiri ducadiisana waa tan quraanka ilaahay noogu sheegay في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أيوب عليه السلام ربي جيبه أرد واقي وربي جيبه لما ناجوده وقيل دان درتو مركبه وحيري إله أنا قد بقى سوى قادو إتابته هذا يقولنا كوا نحرس لك وقلنا حرس بدن باته إله نبكى إيجا قاد بويري إلهي مركبه دعاء سوى كأقبل بالليل هل كي وجوجي بالقول اللوك تهذا اللوك كودفو اركض برجلك سديد يتبصر ننجي فيو حنون سنة أود الجركي سكوت جرتا يقول كمركو حراتي بيو كذا كاني كرا وأودي يعني هذا هو أسباب تلك هالي ويان أنا كابيها صوصارين لقطة هذا يرضى قاجي بس أسبابتن الدنيا ده نركينا أردن نظام كإلهي بكون حجر أسبابتن سيدا جرك بني آدم كان روح ذا يكون حجرته أيا أسبابتن الدون قادر كيسان نظام كإلهي بكون حجرة مركا نظام كإلهي إيش إنه ما قبنا يسوع قدرة إلهي بعالم كان معمول يسال لقطة النبي أيوب سعود قاجي لقوا كعليي لبضل لقوا دحلو ذي بيه كصابحين بالليل لبا إلو ذبيا إلنا وحال يري كم ما يلو إلنا وحال يقول يا عبد وما يلي جركيسي وعادي وعبي على الشيء جودها وحيد حنون كجزر دم بناك وكصباحي وصوك عبي مركلية حاسك سيبا مقالة كتمة دي ويكوريكتي يدو حشونا يسامركا وحيد تري وذي أيوب لورن جريو بكانها
oo muddo dhowr iyo 10 sano halka aan la joogay oo maanta aan ka tagay magaaladaan ugu maqnaayo aan u shaqo tagay miyuu dhintay ma dugaag baa qaatay waliba dhallinyarnimadiisiina adigu aad kuugu ekaayo formigiisii baad leedahay markaasuu yidhi ayuub aniga buu ka yidhi ana ayuub kii aad kaga tagtay sariirta dusheeda ee jiifay ee kici kari lahaa waa isagii ducaan ducaynay ducadii baa ilaah noo aqbalay buu yidhi istiqaama haddaa dadku diintooda ku sugnaadaan waxaad ogaataa xaaladdu hadday timaado xaaladdu wax daa'ima maaha kal hore waxaan leeyahay bisheedii adduunka corona la sheegay wadanadeena Soomaaliya oo cabsi baa la yar dareemayay aaway imika muu jiraa dhulkeena war muu jiraa waxaad ogaataa marka war waxaan adduunka imanayo dhan waa xaalad bay dhaadin eeshiyaanku luqada carabiyaduna waa al ahwaal ilaahay baa keenay marka ahwaashan sida adiga lagu abuuray ayaa xaaladkan adduunka bini aadamka la soo darsaayana ilaahay baa abuuray barwaaqada ilaahay baa abuuray abaarta ilaahay baa abuuray xanuunka ilaahay baa keena caafimaadka ilaahay baa keena amniga ilaahay baa haya colaadda ilaahay baa keena mar waxayna soo martay magaaladeena Hargeysa maanta nabadda aad ku haysataan ree Hargeysa ilaahay ugu xamdiyo qul alxamdulillah dhahada mar waxaan imid anigu daanta xagga wixii ka xiga magaaladani hal qof una socon hal qof dameer iyo ay uu dhulka kaga soo baxaysa qalada dhexdooda maantana ilaahay fadliga dhinac walba waa magaalada u ballaaratay madaaristi macaahidi masaajidi ganacsiga da shukriga in la badiyo Soomaa oo ilaahay ku mahadino marka ahwaal hadday timaado maaha wax daa'ima ogow waa waxina soo maray oo tagaya habeenku ku soo maray oo baxaya famahma tala al-laylu fala budda min tulu'i al-fajr famahma tala al-umru fala budda min dukhul al-qabr waligiiba habeenku ha dheeraade waa bari baa ku xiga waligaaba noloshu ha ku dheeraatee geeri baa ku xigta sidaas oo kale weeyaan haddaad barwaaqa maanta aad ku jirto xaaladda barwaaqada ka faa'iideyso oo ilaahay ugu dhawow haddaad abaar iyo saboolnimo iyo faqri ay kula soo darsaan iyada laftigeega waa xaalad ilaahay baa kugu eegaye ka faa'iideyso ilaahay ugu dhawow culimada islaamka nin kamida ayaa oran jiray laba faras baa adduunka ilaahay noo dhigay buu ilaahay loogu dhawaadaa walla yaabay laba faras magaciisa waxaa la yiraahdaa ash-shukr faraska kalena waxaa la yiraahdaa buu as-sabr adkaysi barwaaqa hadday nala soo daristo waa shukriyeynaa ilaahay baan ugu dhawaanaynaa barwaaqada balaayo iyo dhibaato qaadi kari maynaa hadday nala soo darsaana waa sabraynaa oo diinteena istiqaamo ku yeelanaynaa iyadana ilaahay baan ugu dhawaanaynaa buu yiri تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة barwaaqada ilaahay ku garo abaartiyo dhibaatada markay kugu dhacdo ilaahay ku garan doona adigana marka bukaan hadda tahay ayuub baa ku daliila sidoo diinta istiqaamada ugu yeeshay istiqaamo ugu yeelo maal qabeen hadda tahayna kam tujar ba adduunka soo marto ehlullaahi wa ilaahay taqaan jazakallahu khayr dhalinyar hadda tahayna dhalinyarnimada ilaahaaga ku garo oo todobada ilaahay u hareynaya waxa kamid ah nabigu yiri shaabun nashaa fi taa'ati allah nin dhalinyaro ah oo dhalinyarnimadiisa ilaahay ku barbaaray cibaadadiisa taa'ada ilaahay ku barbaaray dhalinyarnimaduna waa qayb kamid ah waalida buu rasuulku yiri waalan yahay ninka dhalinyaradu markuu dhalinyaro yahay hadii ilaahay uu toosiyo oo ilaahay diinta istiqaamo uu kugu siiyo adduunkan iyo aakhiro wad libaantay ogow fanastaqim ilaahay amarkiisa ku toosnaano insha Allah dhahada meel fiican baan haystaana oo lumi maayo oo dad muslimiin ayaan dhex jooga dad muslimiin ayaan ku dhex noolahay oo lumi maayana ha ku degmin nabiyullaahi aadam alayhi salaam isagaba meesha lagu imtixaamay jannada dhexdeeda ahayd jannada meel ka fiican ma jirtaa halkaas lagu ikhtibaar isaga
جنة دحديدا فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين شيطان أياوي من إبليس عليه اللعنة لأن وسواس يوحو كيري جيت كاس عندي سلقار من فعل كجر تمكون شجع هانو شج هداد هذه حواء جيت كأدعني لهيدين هذه حواء لا ميدون بنقول لهيدين أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين لا ملك بنقول لهيدين أما الله بولي والجنة كوار يا هان لهيدين بكيري وداخل الجنة لقوا امتحان النبي آدم عليه السلام لأن قف كيبو كل عي جنة دي بالله سو ساري ومالك قيامها دتك ومركي نبي آدم أتجان شفاعة أي ويديستان إليهين أبو البشر باتهي هذا النبي يده وجوه الرئي إلهي نوجي إرجع واك أورنا يا قف كي عن جنة رحلة ذا كوجلي أيها بجنة دي نقص ساري بوليه عابد بان هاي او عبادة بدن بان هو إلهي بان عابدانا هكودق من بالليدي إبليس سمدا ميل كبرناني مجرتو إلا إساقو بإلهي بكو عابدي هذا ملائكة نحن إساقو كنول وبقعات كستو سمدا كتا لدوشي إلهي كو عابدينا إساقنا هالكابا لغو امتحاما لغو في النية إبليس عليه اللعنة حتى آدم عليه السلام مركي الله صوري صورة ديسة انت أنا الروح ذا لقوا أفوفين أفرت السنة اللي أيو النبي آدم إنجيجي بابا ديسي أي إنجيجي سي مرقاسة ملايكة صداوه يقان ويكعب صدام مرقاسة ويمادان إبليس عليه اللعنة وملايكة أيو أركيين إنو يحي كإلهي أيك أقودو مرقابة يكور هذا حامدو إلهي نوبري أو نوبري هذا دعاء هذا الله أقبل إياه ويا امتحان باسوس سعده امتحان كأننا كفدنا ونعيان كبقيناي إلهي النوبري بيكون هذا الامتحان كأننا كبعينه إلهي نجبت باديو مرقاس ودعاء يرادا إلهي امتحان كأننا نجبت باديو يكو دعين يسقوسه يسقوس كربا دعاء دي يك الله أقبلي يسقين اختبار كيف كل عيب الليل ومحود دي سجود النبي آدم بوسكت دي marka caabid baanahay oo meel fiican man ilaahay ku caabudaya bay culimadu leeyihiin ha ku dagmina waa inaad cabsootaa oo cabsi ilaahay ku caabudaa cabsidaas marka waxay keenaysaa inaad diintaada istiqaamo ku yeelatid oo qoom baan leeyahay cilmi baan leehayna ha ku dagmin baa leeyadana nin baa isagana cilmiga lagu imtixaamay isagoo caalima ayaa la fidneeyay dadna markaaba diintiisii qalbiga diintii iyo cilmigu laha qalbigiisa ilaahay uu ka saaray bal'aan binu baacura ninkii la oran jiray weeyaan ee reer bani israa'iilaha fi zaman Musa alayhi salam fi surati al-a'raf wa ka ilaahay ku sheegay watul alayhim naba alladhi aataynaahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin waxaad uga warantaaba nabiga lagu yiri kalladhi ki reer bani israa'iilaha hatta magaciisa ilaahay ma sheegin وحل سيئ آيات كيغان سيني با إلهي آيات اسم الله الأعظم كالله بريبا ليلي مقع إلهي وين هدي إلهي وحلقوه ديس إلهي دعاء ونسوع لنين أيا إلهي ننكا بريبا ليلي تفسيرك قرطبك أيا بعض العلماء وحيقبا meel alle meeshu eegaba carshigu ka arki jiray baa leeyay haduu xagga eega carshigu arkayay haduu xagga eega carshiga raxmaanku arkayay haduu xagga eega carshiga ilaahay buu arkayay qolana waxay yiraahdeen may ismullaahi al-azam ka la baray oo ducadiisa mustajaaba ahay madiinatul qudus buna ku noolaa markaas nabi Muuse alayhi salaam iyo qoomkiisii waxay dooneen inay qudus ay ka xoreeyaan nimanka jabbaariinta gaalada niman walaalo oo jabbaariin oo gaala ah ayaa qudus haysanayay marka nabi Muuse iyo qoomkiisa waxay ku dhaqaaqeen inay jihaad intay ku qaadaan qudus ay nimanka jabbaarinta ay ka xoreeyaan marka ninka bal'am bin baa'ur la oran jiray ama bal'am bin baa'ura labadaba waa la yiraahdee ayay u yimaadeen marka bay ku yiraahdeen Muuse nagu soo socda iyo qoomkiisa oo wada socda Muuse waa nin xadiido adag ciidanna u wata ciidan fara badanna u wata hadduu magaalada naga qabsadana uu halaagay oo na baabi'in
لأن حتى ولي إلهي ودو دعادي سلا أقبله حوله يلا عقب أنك كسينا إنه نبي موسى نجاها بار بيقول هذا ويقبي على ذي يندي أنك أسكتوا له بكير سومالي أنا قبيلات باللغة امتحان سوما قبيلات هداد رعدو خطر وين دين تادي وخطر بعد كجر تايو قبيلة هالنقطة وحال نقطتين قبيل كسر رجع وإسلام ما حينين يكون داقين لك مسلم هو الله نداره هل بليون يشم بقولوا مليون أو مسلمين وأدبية يكونوا البطل كايا إن شاء الله ده هذا بريبان قسم من يقول درا جماعنا هينو باقي دارها دادير مرين كلا قرحية بهاي أبا كوني كودي بهاي ما هنو حد عقره لما كوني أفر تبان مركا أنكونا مريكن أنكو جماعة أيان مقالة نيويورك كذا دعني معني يا شيخ سعيد إلى أكون حريص شن لحبان هين مطارك جي اف كندي أربورك نيويورك مركا حراسدو يو إلى لنتو أذكتها أيدا أسكرتها إسلاكا بركنا أسكسدنا أنكو ولا الشيء دي حنتدك كرسينا واسكا وضعنا جماعة الدعوة وعجيب وقتها دي أرضنا وكويتية أرضي جامعيين أمريكا ريك ويدا دي أرضك بوحة والله بكوني أفرتي مريكا كانوا ولا فوجيين ساسادتكم عنده كل حيان دي أرض الدحدة أرضي جامعيين توين لي بيه ده الرجل كان فورم قال له إيه هذا نيويورك كذا داعي محيين حتى هدان السلام عليكم ندانو بس كايا ايغا يعني يلا نقول سوورن معناها ولادك يا الكذب ايربوركي ما كدا دغني dadkii jaamacadaha u socday nin walba qolba la galay interview la yeeshay qol annaki mar alle markayna arkeen nimankii immigrationkii ma group baatihiin annaku jamaaca nahay welcome halkan kaalaya kiishiye gooniye intayna joojiyeen kiishiye waa meesha immigrationku ay baasaboorada kaga dhiftaan halka dadka maalin dhan la haysanayay 35 saacadan eega 35 daqiiqo noogu dhameeyeen annaka hawlaha yagii markaasaan halka imano alaabteedii baan iska qaadanay kuwa Soomaaliya aan arkay mar alle markay Soomaalidina arkeen ee Soomaali inaan nahayna ay noo garteen way baxsadeen maxay u baxsanayaan yaan wadaadada la inagu agsawirin markaasaan jamaacadii ku iri unduru eega baan ku iri dadkii nala afka aha ee isku wadanka aan ka wada imanay soo naga baxsan maayaan haddaba raggan istiqbaalow hadana bal eega yaana istiqbaalay markaa niman dhakhtar ah qaarkood Mareykan cadaan ay yihiin qaarna Mareykan madow ay yihiin qaarna niman Aasiyaatiga oo wadankaas dhakhtarada ugu qiimo badan New York gudaheega markaas nin walba oo jamaacadii kamid ah hal gaari baa la noo diyaariyay hal gaari mar alle markaan u tagnaysan ugu dhagdhageen markaasaan jamaacadii ku iri innaka laandaaray hadaba arka daaciga laandheera baan ku ninka muslimka ee ilaahay dartii u socda waa ka laandheerinimadiisu eega baan ku iri marka waxaan qisadan u soo qaateen niigu sheegaya wax kala maaha war muslimnimo meel ka sokaysa ha ku qancinba hadaad muslimnimo aad ku faanto oo qofka walaalka ee muslimnimo aad ku jeclaato oo muslimnimada islaamnimada aan isku xiriirino oo islaamnimada aan isku tixgelino hada laandheere ugu ninkani marka fi suurati al-a'raf qisadiisa lagaga waramay اسم الله الأعظم كإلهي أفري بالليل دعاء الإسلام مستجابة هاي لكن من تركيا أي تيوي ما دين بيكوير هذا النبي موسى يقوم كيسي آيات دقال إنه سوق هذا نجا حبار مركز سويا وحول هدان موسى حباره الدنيا دي آخرة دي ويجا بابي بودي ما ده قلنا بابين موسى وانين حديد وأذك نقال هذا حدو سوق النرابي مايو واحد دون تناك كوسين نجا حبار وحال يدي ويقلن دقال كباب بالله نبي موسى عليه السلام وحال يدي وجبين كري ويا قالدي مركز النبي موسى إله إلا مناجودي مركز إلهي كيري أدون ما هيجا كمدا ماشي كجرو السجا إني حبارة يقولي مركز النبي موسى يا ربي
باطل مربح هدو كتاغن يحي ودad باطل wadana uu kaalmaynayo diintan adiga isaga inaga dhaxaysid adiguna ku xurmaynaysid ku qadarinaysid ilaahu diintaasi ismullahi al-azam ka aad bartay ilaahu ka saar buuli ka masax qalbigiisa وعلى هل مركلي قلبيgiisa umba wax ka soo kaceeno wax shimbir oo kala ninka afkiisa ka baxay baa leeyahay dadna carabkii baa soo dhacay markaas ay leeyihiin ciidankii Muusana way soo durqayaan kolba soo dhawaanayaan markaas waraawe habaarkii wade markaa buu leeyahay haddaan habaartamana habaarkaygu ininku nagu dhacayaa buu nabi Muuse ku dhici maayo haddii toolo waayo xiriirkii aniga Ilaahay naga dhixiyay meesha ka baxay buu yiri Allah haddii toolo wax kale nagu taageera ma haye laakiin makri baan hayaa buu makri shirqool baa nabi Muuse qoomkiisa u dhigaynaaye shirqoolka baan ni sheegay farsamada ku dagaalgala buu yiri waa maxay farsamada wuxuu yiri gabdhihiina yar ee bikiradaha dhar qurux badan intood u xidhaan nabi Muuse qoomkiisa ka horgeeyay buu yiri dadna way ku fidnoobayaan oo dadka nabi Muuse la socda gabdhaha yar bay ku fidnoobayaan markay zinada iyo macaasida ay ku dhacaana ilaahay gargaarkiisa ka faydmayay uquba ku soo degaysa markaas marka makri talada ina nasiye mooyaane habaar iga soconaya imika ma jiro waa ninka ilaahay yiri kalladii aataynaahu aayatina maxa cilmiga inta la eg baa ilaahay bara ismullahi al-azam inuu yaqaano وعلى روحك كلي إنك طريقة كسرت اللي حسي وعصبية وقبيلة مركا عالم بان هاي وقوم بان لا هاي إلهي بان أدو هاي هكو دق من ضد في عم بان لجوغانا هكو دق منو أبو جهلي أبو لهب نبي محمد بي أركان صلى الله عليه وسلم هذا النبي محمد بي مقلان قرآن كو نبي محمد آخرنا يبي دقيستين هذا أنا وكو انتفاعي وايين marka ilaahay tabaaraka wa taala istiqaamaha nasiyo waynan diinteena ku sugnaano istaqiim dabayla imanaya dabayl socota dabayla farabadan nabiga soo sheegay sallallahu alayhi wasallam fitan baa iman doonta oo zamanka ka dambeeya xaaladu si adkaanaysa nabiga sheegay ilaa saacada qiyaamadu ay dhici doonto waa inuu qofka muuminku diintiisa ku sugnaada أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل إلهي أكتيس عملك اللي رجع إلى بدنيه وعملك الدائم اللي جوكتيو ولو عملك سحابة يراضيه أسبابت استقامة الدين تكوكسين سواء حاكمة بعلمة ليهن وين تكون نولاتا وين تأجت بلشدة ونكسن مجتمع ونكسن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل بنبي قولي صاحبك دين تأو هايستو أيا أدينا الدين كون نقونيسه نين ولو إنك الله صاحب إزكاك برسول كيري بركة مجمعين نادام ودلنير وبدن يهاي زمن كنا وزمن دلنير هذا آد وجحن ويهاي وزمن أهلس أي كسو هجاجين لنا عن الزمن كوا كفي عن يهايو ما شاء الله دعوة بعد هاي ستان مساجد بقى النور اسمه يسا خير كبا النور بدنا يا اجتماعي أيا الله قبنا يا حفلة يا ندوات إسلامية أي علماء إنه قبنا يا ورماشى خير كلا وين كورد نويان صاحبك صاحب دين تأوقبه أي أديك الدين كون نقنا يسبو النبي يقوله نولو إنك الله صاحب إسكائب مركب الشدة وناكسن هذا الله صاحبته دين هذا ويكوب بادي وايو لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي بنبي يقوله الله صاحب إلا قف مؤمنا مويانه هذا واحد بحين سنة قفك الله كبقى لسيب رسولك يري لأن قفك الله كبقى لهذا واحد يسوع إلهي بوجود دوان أجر يا حسنات نعدونا واتكهلي قفك إيمان كله المساجد علماء دعوة خيرك كحرا هذا العلاقة الله يا الله صاحبته هذا كان خيرك قفك سكوجيدي سيدنا كريم بن إسرائيل ها إسقالي إسقاش كان نفقوي وهو يدي عالم يتلمام أبو يري نراهب الله شيء الراهب كونك عابدك راهبك وحو كيري مركو سغاليه سغاشن نفان goye toobad man leeyahay maya toobad ma lihid buu ka yiri dadna boqol buu ka dhigay isagii
haddana ninkii ma fadhiisane war nin caalima ila doona caalim baa loo tilmaamay war ninkaas axkaamta yaqaanay u tag caalimkii markuu u yimidayna deedna markaasuu yidhi haa toobad waad leedahay laakiin toobadaada shuruudeeda waxaa ka mid ah dhulkan aad joogto waa dhul xun waa inaad dhulkan aad bedishaa oo xaggeed u bedelaysaa dhulka meel heblaaye la yidhaahdo waa dhul wanaagsan dad wanaagsan oo ilaahay caabudo khayr badan baa ku noole dadka u tag buudho ilaahay caabudayaan la caabud sidaa unbay toobadaada adiga ku hagaagaysaa deedna ninkii uu xamaan qaatay jidka bartamaha isagoo maraya ayaa ajashiisii timiday malaa'ikatulcadaab iyo malaa'ikaturaxma isku qabatay malaa'ikatulcadaab waxay leeyihiin ninkani waa ahlannaar oo 100 naf buu qabaa malaa'ikaturaxmana waxay leeyihiin jaa'a taa'iban ila allaahi caza wajalla ilaahay xaggiisa u soo noqdo ninkani toobad buu u soo socdee xagga naxariista ilaahay baa loo qaadayaa malag suurad aadamiyela ayaa loo keeno la yidhi u kala garnaq labadaa malag markaasaa la yidhi meeshuu dembiga uu ku galay iyo meeshuu raba inuu u hijroodaa la yidhi u qiyaasa dhulkuu u socday ee uu hijroonayey ayaa ilaahay u waxyooduu ku yidhi addoonkayga u dhowow taakay dheeraatay buu rasuulku yidhi taako tii u socdayba waxyi min allaahi baa yimid u dhowow addoonkayga inuu naariga gala ma jecliye dhulkaygiiyo addoonkayga u dhowow u dhowaaday taakuu dheeraaday dhulkuu u socday baa markaa loo qaado malaa'ikaturaxma baa qaaday marka mujtamaca saamayn buu noloshaada ku yeelan imanka mujtamacyadeennan markaad masaajidka markuu qofku joogo culammada wacdigooga ama khayrkooga uu maqlaayo waa sida bahalkan taayirkan baabuurta naqaska la buuxiyo ama kubadda tuyibka waa la buuxin irbad haddii lagu mudo ka waran way sii daynaysaa markiiba masaajidka markaad soo gasheed wacdigaa dhegaysatay iimaankaagu iyo khayrkaagu u biiraya waxaad jeclaanaysaa noloshu inay sidaa uun iska ahaato laakiin markaad maqaaxida fadhiisata ama bannaanka aad u baxdo markaaba ishaadu ma waxay ku dhacaysaa wax iimaankaaga dhaawacaya mise wax iimaankaaga kubcinaya ya wax iimaankaaga dhaawacayaad maanta arkaysaa markaa zaman adag baan ku jirnaa maanta waa inaan bulshada wanaagsan markaa xaggeega u badannaa masaajidda ku xidhnaanaa dacwadda ku xidhnaa nafteenna khayrkaa socdana aan cilaaqo la yeelannaa soo diyaar manin insha allah inaga aqbalo wixii wanaag ilaahayna soo dhex mariyana isaga ayaa fadligaa iska leh wixii gaf naga dhacayna ilaahay ha inooga dembi dhaafo kulligeen ilaahayna miisaanka xasanaadka dhegaysigiina iyo hadalkayga ha inoo wada saaro khaatimadana allah inoo hagaajiyo dembigeenna allah ha dhaafo dembiga waalidiinteenna allah ha dhaafo diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allah ha shaafiyo mowtaadkeenna allah ha u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badan oo muslimiina duca dalbanayo wada xanuunsana caafimaad sariica allah ha siiyo qof walba alluu ka kurbaysana kurbada allah ha ka qaado sala allahu calaa sayyidina maxamed